meelo kala duwan oo Mareykanka kamid ah mudaharaadyo dhowr ah ayaa si nabadgelyo uga bilowday intii aan isku bedelnay isku dhacay booliska iyo rayidka u dhaxeeya gawaari ay booliska leeyihiin ayaa dab la qabadsiiyay boob ayaa ka dhacay qaar kamid ah magaalooyinka waaweyn ee dalka bando ayaa lagu soo rogay ugu yaraan 40 magaalo laakiin dadku si aad ah ayay isaga dhagatireen bandoogaasi mudaharaadyada ayaa hadda ka dhacaya meelo kale oo kamid ah caalamka laga bilaabo London ilaa Berlin Auckland ilaa Toronto kumaan kun oo dad ayaa isku soo baxay qaar badan waxa ay xiran yihiin wajixir ama mask waxayna ku heesayaan George Floyd waa inuu cadaalad helaa waxay sidoo kale ku qeelinayaan dhibaatada haysata dadka madow waa in ay ka baxaan haddii aanu dib ugu laabano dalka Mareykanka madaxweyne Donald Trump ayaa muddo kooban loo qaaday goob lagu gabado oo ku taala aqalka cad maalintii Jimcaha ahayd sababtuna waxay ahayd dareen laga muujiyay halista ka iman kartay banaanbaxyada ku banaanbaxayay dhismaha banaankiisa Washington DC waxa ka dhacay rabshadihii ugu xumaa iyadoo dhismayaal la burburiyay warbixintan waxaynu ahay aadan maxamed cabdisalaamiin kuwani waa banaanbaxyo looga soo horjeedo dilkii George Floyd laakiin marka la fiiriyo goobta uu mudaharaadku ka dhacay waxa uu fariin u dirayay hal qof si gaar ah waxaan u baahanahay inuu nin weyn noqdo uu nin iska dhigo waxaan u baahanahay inuu joojiyo dhaqanka carruurnimada ah carruurta ayaa tuwi dirta waa habeen burbur leh oo xaaladdu ay kacsan tahay dibadda aqalka cad inta badan waxa ka dhacaya mudaharaad boolisku waxa ay gaas ku furayeen dad burbur leh oo xaaladdu ay kacsan tahay dibadda aqalka cad inta badan waxa ka dhacaya mudaharaad nabadeed laakiin dab ayaa baxaya boolisku waxa ay gaas ku furayeen dadka isku soo baxay waxa ay furayeen rasaas sidoo kale ay ku difaacayeen guriga madaxweynaha mowqifkoodu waa uu cadaan laakiin wax yar ayay ka qabteen in ay bedelaan aragtida booliska ahayd inay xoog isticmaalaan filim qaadaheenna wadooyinka ku wareegsan aqalka cad iyadoo aanay ka jirin isku day lagu dhimay rabshadaha waxaa halkaasi ka jiray fawdo dukaamada iyo gawaarida oo la burburinayay aad ayay u adkayd in la qiyaasay in goobaha waxaasi ka dhacay in ay tahay caasimadda Mareykanka taasi waxaa laga yaabaa in uu qof caddaan ah lahaa xaq ayaanu u leenahay inaanu gubno waanu damqanaynaa halkan ayaanu ka damqanaynaa waa sida keliya ee ay nagu maqlayaan waa hadal keliya waa erayo oo keliya waxba ma dareemayaan shaki kuma jiro in ficilkani uu aad uga badan yahay dilkii foosha xumaa ee loo geystay nin aan hubaysnayn oo Mareykan madow ah ayaa habeenkii lixaad ka dhacayay magaalooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka iyadoo ay soo xoogaysanayaan rabshadaha ay sameynayaan dadka mudaharaadada oogaya oo ka cabanaya dilkii toddobaadkii hore loo geystay nin madow oo aan hubaysnayn magaalada Minneapolis mudaharaadadaasi ayaa imika waxay wada gaadheen inta badan magaalooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka waxaa sii xogeysanaya mudaharaadyada ka dhacaya 40 magaalo oo ka tirsan dalka Mareykanka halkaasi oo shacabka ay ka wadaan mudaharaadyo lagu soo horjeedo dilkii toddobaadkii hore ee booliska magaalada Minneapolis ay u geysteen nin madow ah oo lagu magacaabo George Floyd shacab cariisan ayaa gubay saldhigga booliska magaalada Minneapolis halka magaalooyinka Philadelphia, Atlanta, Denver, Los Angeles, Seattle dab la qabadsiiyay baabuurta ay leeyihiin booliska magaalooyinkaasi warbaahinta Mareykanka ayaa tabinaysa in xaaladda ammaan ee madaxweyne Donald Trump ay qalqal gashay muddo saacad ah maalintii Jimcaha kadib markii dad careysan oo mudaharaadaya ay soo buuxdhaafiyeen afafka hore ee dhismaha aqalka cad madaxweyne Donald Trump ayaa ciidamada ilaalada waxa ay ula carareen qol dhufays ah oo dhulka hoose ee aqalka cad ku yaala si uu halkaasi gabaad uga dhigto haddii aan u soo noqdo gobolka Minnesota oo ah xudunta ay mudaharaadyadani ay ka bilowdeen ayaa bandoogii la soo rogay dhaqan galay gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz oo jahwareer xooggan ay ka muuqato ayaa ballan qaaday in awood buuxda loo adeegsan doono soo celinta nidaamka iyo kala dambeynta magaalooyinka mataanaha ah ee St. Paul iyo Minneapolis
gudoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in waxa haatan ka socda magaalada Minneapolis ay xasuusiyeen Muqdisho iyo Baghdad waxaana gobolka Minnesota lagu soo rogay bandow bilaabanaya habeenkii 8 fiidnimo ilaa 6 subaxnimo waxaana wadooyinka magaalada Minneapolis la keenay ciidamada keedka qaranka Mareykanka oo gaaraya ilaa 5,000 oo askar maanta mar aan soo maray halkii ay ka bilaabatay mudaharaadkani ayaa waxaan arkay dadka mudaharaadaya oo nadiifinaya magaalada si ay u soo celiyaan bilicda magaalada Minneapolis oo ay ka muuqato burbur aad u xooggan dadka magaalada nadiifinaya ayaa waxaa ka mid ah Soomaali kuwaasi oo aan kula kulmay afafka hore ee bangiga Wells Fargo oo la gubay bangigaasi oo aan ka fogeyn suuqa weyn ee Soomaalidu ka ganacsato ee Carmel mid ah Soomaali kuwaasi oo aan kula kulmay afafka hore ee bangiga Wells Fargo oo la gubay bangigaasi oo aan ka fogeyn suuqa weyn ee Soomaalidu ka ganacsato ee Carmel magacayga waa Saciid Maxamuud Guure Sambulan ku magac dheerahay deeq darajo ku salaamay arrinkan ay u dhacday aad aan uga xunnahay hadaan reer Minneapolis Soomaalida degan Minneapolis magacayga waa Saciid Maxamuud Guure Sambulan ku magac dheerahay deeq darajo ku salaamay arrinkan ay u dhacday aad aan uga xunnahay hadaan reer Minneapolis Soomaalida degan Minneapolis aan nahay waxaan ka qayb qaadanayaa dhismaha maaragtay dib u soo celinta West Fargo bangigan oo si xun oo fool xun loo galay oona aad iyo aad ugu xun dhaqanka maaragtay islaamka iyo dhaqanka Soomaaliyeed aad baan uga xunnahay waana ka qayb qaadanaynaa inaan dalka dib u dhisno oo annagana magaaladanada ay tahay magacayga waa Farax Maxamed Cali halkan waxaan u imid inaan arrintan community-ga inaan ka qayb qaato markaan meel degantayna waa inaad sidii gurigaada oo kale ugu noolaato hadda waxaa boostadii hadda waa la burburiyey dadka warqadaha meesha wax ugu soo dhacayaan ma jiro Wells Fargo hadda lacagihii meelaan kala baxay ma laha dukaamihii raashinku dhan waa la wada xiray waxaan aad u mahadnaqaa dadka reer Minnesota ee Soomaalida community-ga degan oo wiilasha u jeedin waa wiilasheena Soomaalida ee ma arkano dhibka gaaray Minneapolis oo ka hortagayo dadka caawinayo waxa u soo baxnay kaliya inaan dadweynaha caawino Cabdirashiid Jibriil waxa uu ka mid yahay Soomaalida ku nool Minneapolis waxa uu si iska wax u qabso u kala hagaya gawaarida maraysa wadada Lake Street ee Minneapolis